kulan looga hadlayay kaalinta garsoorka dalka uu ku leeyahay dowlad wanaagga iyo xasiloonida ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Axmed. dood cilmiyeedkan oo ku saabsanaa nidaamka garsoorka iyo kaalinta uu ku leeyahay xaqiijinta xasiloonida iyo maamul wanaagga Soomaaliya oo ay soo qaban qaabiyeen Machadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ayaa lagu qabtay xarunta machadka waxaana ka soo qayb galay xildhibaano culamaa u diin aqoon-yahano iyo bahda garsoorka dalka iyadoo khubarada dooda daadihinayay ay si qoto dheer loo falanqeeyay kaalinta garsoorka uu ku leeyahay dowlad wanaagga iyo xasiloonida sidoo kale ka soo qayb galayaasha madasha ayaa su'aalo ku saabsan arrimaha garsoorka weydiiyay abuukaatayaasha barnaamijka daadihinayay waxay tahay su'aashayda horta waxa tiri garsoorku waa mid ilaaliya xuquuqul insaanka garsoorku wuxuu ka yiri tacadiyada iyo kufsiga ba'an ee lagu hayo habeenka iyo waliba jirdilka wuxuu ka yiri ina ogaada rabaa waa maasantii saddex mabda inuu ku dhisnaado ayaa laga maarmaan garsoorka noocaas mabda koowaad waxa waaye garsoor madax bannaan inuu yahay garsoorka si uu u xaqiijiyo dowlad wanaag si uu u xaqiijiyo xasilooni waxa laga maarmaan marka koowaad inuu yahay garsoor madax bannaan sidoo kale garsooraha garta qaadayo waa inuu madax bannaan yahay shakhsi ahaan uu madax bannaan yahay marka uu dacwo qaadayo waa inaan lagu faragelin dacwada uu qaadayo mabda labaad waxa waaye garsoorku waa inuu yahay garsoor loo sameeyaa waxa waaye dadka oo dhan waa inay u sameeyeen dawladda iyo shacabku waa inay u sameeyeen markaas marka xiriirlaaliyuhu shaqada uu qabanayo waxa waaye hadana inuu xiriir wada shaqeyneed oo toos ah inuu la leeyahay garsoorki oo kala shaqeynayo cadeymihii la soo aruuriyay iyo dadkii la soo qabtayba in ayaguna ay helaan cadaalad sax ah oo aanan lagu xadgudbin xuquuqdoodii ay xaq u lahaayeen inaan lagu xadgudbin qofkii maxkamadii la horgeeyo la soo bandhigo cadeymihiisii iyo waxa la xiriiray taas waa shaqada guud xafiiska xiriirlaalinta la xiriir wax caqabad ku ah hadii uu madaxweynaha oo amar ku bixiyo maxkamadda maxay ka qaban kartaa ma ka soo horjeesan kartaa amise amarka madaxweynaha ayaa soconayo madaxweynaha amarkiisa iyo sharciga waa iskhilaafaan waa iskhilaaf karaan dabcan madaxweynuhu waa dadka caadiga ah oo kamid yahay waa hay'ad kamid ah hay'adaha dawladda madaxweynuhu waa sharci ilaaliyaha haddii marka go'aanadiisu ay khilaafsan yihiin sharciga cidda ay go'aanadaas taabanayaan waa kusoo dacwo kartaa maxkamaddu kusoo dacwo kartaa maxkamadduna waxay ku qasban tahay in sharciga ay raacdo marka madaxweynaha noqdo ama prime minister ha noqdo ama madax kale dawladda ha noqoto sharciga ka sareeyo mar walba xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo ka tirsan guddiga cadaaladda ee golaha shacabka ayaa u mahad celiyay Machadka Samadoon isla markaana sheegay inuu garab taagan yahay aad baan idinku mahad celinayaa runtii Machadka Samadoon waxa weeye si wacan buu shaqeynaya runtii waxa weeye mawaadiic muhiima ilaahay ka jazaysiyo dhalinyarada ka soo qayb gashay abukaatayaasha aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa hawl fiicanna way hayaan ilaahay ha uu fudeediyo ha ku garab galo waxa weeye Cabdullaahi Maxamed warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Muqdisho.